dhismaha galmudug oo hadda maraya heer gabagaba ah waxa wali gorada isugu jira Al-Sunna iyo dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo kulan dhuuso marab kula yeeshay bulshada rayidka ayaa ka hadlay dalabka Al-Sunna ee ah in 35 xildhibaan laga siiyo golaha wakiilada galmudugta cusub waraaqdaas aniga ayaa soo saaray saxeexay aad iyo amaan waxay yeelatana diyaar u ah inaan xambaaro hase yeeshee fahamkayga waxay ahlusunna wal jamaaca wareegtadan baraha bulshada u soo dhigeen in ay caddayn uga dhigtaan in laga ballan qaaday 35 ka mid ah 89 ka xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug loo dhisi doono intaas cid ka dafirtay oo aan ogahay ma jirto sidaan hore u soo sheegay waa qiimihii looga iibsaday midnimada galmudug iyo albaabka wada hadalladu inuu furmo waxa isweydiin leh sidee loo fulin karaa ballanqaadka loo sameeyay Al-Sunna wal Jamaaca yay ku xiran tahay jidkee loo maraa waqtigeedii ma la gaaray waxay u muuqataa in Al-Sunna wal Jamaaca aysan arrimahan wax badan ba iska weydiin dawladda federaalku waxay juhdi kasta ku bixinaysaa in ballanqaadkaasi fulo waxaase la rabaa in la ogaado in dastuurka federaalka iyo dhammaan kuwa dawlad goboleedyadu si cad u qeexayaan in xulista xildhibaanada golaha wakiilada dawlad goboleed kasta ay tahay mas'uuliyadda dhaqanka beelaha degan dawlad goboleedka dawladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda 35 xildhibaan ee Ahlusunna loogu tagayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug dawladda federaalku waxay diyaar u tahay inay u ergeyso kana codsato dhaqanka galmudug inay la meel mariyaan qaanta ay u qaadeen danta midnimada iyo xal u raadinta galmudug Al-Sunna wal Jamaaca ayaan wax jawaab ka bixin hadalkan dhawaan ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Somali Cable TV dhuuso mareeb